السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي أدبد ما تسنين halkaad naga daawanaysan waa channelkeedii Amaal. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe iyo like iyo comment intaba nagu caawi. maanta waxaan doonayaa inaan idla wadaago sidii aad Photoshop aad ugu shuban lahayd mobilkaaga Android-ka adigoo aan wax computer u baahan aad mobilkaaga dhexdiisa ku edit garaysan karto wixii aad u baahan tahay. haddii aad cover samaysanayso iyo haddii aad samaysanayso thumbnail iyo haddii aad board samaysanayso adoo mobilkaaga Android-ka isticmaalaya inaad ku isticmaali karto. ugu horreyn waxaan idin sheegay application-kan aad ku isticmaali karto magaciisa. application-kan ugu horreysa waxaad kala soo degaysaa Google Play Store. Google Play Store markaad sidan oo kale aad u doorato halkan search-ka waxaad ku qoraysaa Photopea. Photopea markaad ku dhufato kan ugu sareeya ayaad ku dhufanaysaa. application-kan aad u fiican 3.1 baa lagu codeeyay. application aad iyo aad u fiican weeyaan aniga aad iyo aad aan ugu helay. aniga way igu jira markaa haddaba bal application-kan soo furno sidoo uu shaqeynayo. application-ka waa kan. application-ku sidan oo kale markaan ugu soo baxay markaan soo furno halkan waxa weeyaan ugu soo horeysa dar ku bilowno waa new project. waa project cusub soo gali ama wixii aad soo galisay halka ugu horeysa aad ka soo galisay weeyaan buuri. halkan waxa weeyaan halkii aad ku furaysay computer-ka ama tablet sidoo kale dhulkan kale ku xeeranna waxa weeyaan halkii aad ka hagaajin lahayd hadaad wax ku soo diraysid hadaad wax ka jaraysid hadaad layer kala saaraysid waa sidaas oo kale sidii caadiga ahayd computer-ka iyo buugaag sameeyay. halkan ugu sareysa waa file haddii aan doorto sidoo kale ku soo dhagaya. halkan kan kood waa midna U4 halkan waxa weeyaan open file-kaaga fur. file-kaaga markaad furto waxbaad ka soo dhex qaadanaysaa oo sawiraantaada ama fiidiyoada si toos ah ku geynaya kadibna waxaad u baahan tahay soo qaadanaysaa si aad halkan dashboard-ka u keento. halkan kale waa edit waxbaad ku edit garanaysaa image layer selection filter iyo view. haddana dhinacyada kale u nimaadno halkan oo kale waxa ku yaala image baa ku sawiran. haddaba haddii halkan image qofku ka soo gelin karo image-kana muxuu yahay? image-kana waxa weeyaan halkan waxaad ku soo gelinaysaa sawiraanta uu ku jiro application-ku iska wato sawirro iska wataa. marka haddii aynu furno sawiraantiisu sidan oo kale weeyaan waa sawirro yar qurux badan oo ku samaysan karto ku darsanayso Photoshop-kaaga aad u qurux badan nooca doonaysid ka dooranaysa markaa aad u fara badan yihiin. haddaba haddii aad doonayso waxaan aad meesha soo gelisay inaad back ka tiraahdo calaamad kale oo arrow back ma jirto marka waxaad samaynaysaa isla halkaad ka soo gelisay ku dhufanaysaa. hadda image ka soo geliyay isla image ka soo geliyay mid ku dhufanaya. maanta waxaan doonayaa inta dashboard-ka inaan dadka sir fahansiino insha Allah qaybaha dambe kula socon doonaa waqtigeena ugu yar awgeed. fadlan haddaad channel ku cusub tahay subscribe iyo like iyo comment intaba nagu caawi.